السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن أصحاب تقاليق أهوان السلام ميرول بأدنى داخلك جوكتون خيارتي تقاليق صباح وناكسن وحب بنيتا وناكسن أصحابتي تقاليق خارجينا لما أنتي بشكوشي برواق النوادي عافمات إن خصوصك علين أنتي أنصار نواد كعين وسرت سهر وحنا الله سبحانه وتعالى عافمات عمر لعوض صغير لما أنتي الله نسير أنتي صونوت على سبحانه وتعالى هو عافمات كلاد وأسياد شو أصحابتي تقاليق أهوان السلام ميرول بأدنى داخلك جوكتين أصحابتي تقاليق أهوانية waxaad celinaa sida wanaagsan loo geeliyo kalisiin janalkii ugu xirantihiin asxaabta qaaliga ah janalka aan naga daawanaysaan waa Rooda Cabdiraxmaan qofkan ila hadlaayo in warkan soo gudbina walaashin Rooda Cabdiraxmaan asxaabtayda qiimaha badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhamaantiin naga raali noqdo naxariis ilaahay qalbigeena wadi wanaag ku beero asxaabtayda qiimaha badan saaka halkan soo fadhiistay wax kala ma ahan wax badan oo soo wada insha Allah asxaabtayda qaaliga ah hay isugu weeyeen hadda Allah subxaanahu wa ta'aala qof awada taqaaniin oo walaalkeena ah oo aan youtuber isla wada nahay dhamaanteen youtuberkeena meel walba aan joogno aniga waxaan ka tirsanahay youtuberada Muqdisho reer Muqdisho kamid ah walaalkay liicaato awada taqaaniin ama liibaan saa u taqaaniin liibaan liicaato runtii ku dalka Malaysia ku nool awalna joogo jiray magaalada Nairobi walaalkay liicaato waxaan ku leeyahay Allah subxaanahu wa ta'aala caafimaad ku siiyo walaal qaadiya aniga ma taqaan laakiin aniga baraha bulshada ayaan ka aqaana runtii runtii waxaan ku leeyahay walaal qaali ah waxaan maxay subxaanahu wa ta'aala Allah kaaga barya cudurka aadka waxaan ku badnana ku dhaca coronavirus ayaa maqlay walaalkay liicaato runtii qof maadaama talent leed naga qosliyo maadaama roob aad tahay janalkaagan aan ku xiranahay mar walbana aan yaani naga qosli jirtay loona baahay bulshada Soomaaliyeed qof dadkii yaani markay diiqadaysan yihiin ama bini'aadam caqabad soo wajahan ka qosli loo baahay aad ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'aala adiga xanuunka sida noogu qosan jirto noogu bixin jirta kaaga qaado walaalkay qaaliga ah aad baan ku jecelnahay ilaahay ku jeclaa sida noo jeceshahay adigana mar walba waxyaabaha qurux aan ugu soo gudbisid iyo fikradahaada ma sha Allah qaaliga ah mar walba adii walaalkay Muniir dhamaantiin aan soo gudbi jirteen walaalkay sayga arimaheena kuligiin waan iga mahadcelinayaa asxaabtay Malaysia dhamaantood halkan ayaan ka salaamayaa walaalkay liicaatan waxaan ku leeyahay walaalkay qaaliga aboowe ilaahay ku caafiyo caafimaad Allah ku soo dajiyo xanuunka siisa badan waa dambi dhaaf sheedaan ayaa xanuunsan qof xanuunsan hada caafimaad iyo hanti adin xub la sii waa sheedaan qofka mu'minka uu xanuunsan mar walba Allah subxaanahu wa ta'aala ilaahay waxaan kaaga baryaa walaalkay qaaliga caafimaad iyo cimri dheer inuu ilaahay ku siiyo adii dhammaan muslimiinta meel walba aan joogno dhamaanteenaba asxaabtayda qaaliga dhamaantiin waan salaamayaa كليبكان يرون أدو دارين وحنوقو تلقى ولالك liicaato asxaabtayda qaaliga ah adinkana inaan mahad celiyo mar walba naga mudan tihiin mahad celintiina kama daali doon asxaabtayda qaaliga ah sida wada ogtiin janalkayga muddo hal sano ayuu furay sanadkii labaad ayaa hadda bilowday walina ma gaarin maanta intii laga rabay asxaabtayda waxaan iga codsanayaa janalkayga inaad igaarsiisiin kuntii iyo shuruudihii liiga baahnaa ee ka badan baad igaarsiin doontiin waxooga ama macnaha adiga aan qasab aan igu leeyahay ma jirto waa codsi walaaltinimo ama bini'aadanimo heerka amaanta YouTube janalkii uu tagan dadaal badan aan sameeyay kuma gaarin laakiin walaalo Soomaaliyeed jecel ayaan haystaa waxaan rajeynayaa inta janalkii ku xiran in ka badan oo maantay si jecelna imaan doonto mar walba hadii aan dadaalkayga badin uu ogahay muuqaalo qurux badan aan soo gali adikana ka sii heli doontiin Soomaaliyeedna waxaan jeclaan aniga aan janalka soo qabtay wax qurux badan aan jecelnahay wax qurux badan waxyaabo faa'iido leh wax badan inaan soo gali maadaama qof dumar aan ahay dadka walaalahay bulshadana u faa'iiday waxa meeshan u soo istaagay waaye uma soo istaagin yaani inaan lacag janalkan ku raadsho dad ayaa waxa aaminsan yihiin qaarkood laga yaabo maanta Rooda Cabdiraxmaan janalkan ay u soo fadhiistay aniga labada mid oo soo fadhiistay dadkay inaan ku dhiirigeliyo inaan noqdo qof fiican aan cabsanin oo yaani xigmado badan qalbigeeda ku jiro iyo waxyaabo badan oo waxtar bulshada u leh haday wiil noqon lahayd gabar noqon lahayd wiil iyo gabar way siman yihiin wiil waa aabe waa walaalkay waa adeerkay waa wax walba gabarna waa sidoo kale